soo dhawaada bal xaweeso dood oo goora tarjii xarada ka jira dhaagno. luqadan aad maqlaysid ma ahan lahjad Soomaaliyeed, dadka ku hadlayana ma ahan Soomaali, balse waa dad muuqaalka, dhaqamada qaar, labiska iyo qaybo badan oo luqadda ahba kala mid ah Soomaalida. diin ahaan iyo habnololeed ahaanba waynu kala duwannahay. waxay cabbaan dhiigga, leeyihiin sanamyo ay caabudaan. waxaynu u jeednaa qabiilka Rendile, qabiilkan lagu tilmaamo inuu yahay qabiil Soomaalida ka lumay. ayaynu eegi doonnaa sida aynu dhaqanka iyo luqadda uga midaysannahay, meeshaynu iska soo galno iyo sidoo kaleba meesha ay degaan. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. qabiilka Rendile ayaa sidoo kale loogu yeeraa reer diinle ama reer diidle sida ku qoran diiwaanada qaar. waa qabiil dega waqooyi bari Kenya, dhinaca xiga xuduudda Itoobiya. Rendile waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin qabiil markiisii hore ka tirsanaa Soomaalida, balse khilaafaad badan oo ka dhashay isbeddellada dhaqanka, diinta iyo deegaanku uu keenay inay kala tagaan iyaga iyo Soomaalidu. markaad aragto muuqaalka guud, marnaba shaki kaama gelayo inay Soomaali yihiin. luqadda ay ku hadlaanna erayada ugu badan waxay raad ahaan gelayaan afka Soomaaliga. bilowgii qarnigii 20aad, sahmiye Maraykan ah oo tegay dhulka oomanaha ah ee ay degan yihiin Rendile ayaa ku sifeeyey inay yihiin dad dhudhuuban oo dhaadheer, tima jilicsan, muuqaal ahaanna ka duwan bulshooyinka kale ee ka agdhow sida Sambuuraha. tilmaamahan ayaa la mid ah isla kuwa ay sahmiyeyaashii hore ka qori jireen Soomaalida oo ay ku tilmaami jireen dad madow, balse muuqaalka jir ahaaneed kaga duwan dadka ku nool deegaanada ku xeeran. Rendilaha ayaa u kala baxa kuwo ku dhex milmay bulshooyinkii ay dhex degeen oo dhaqan ahaanna wax ka beddelmeen, iyo kuwo aan milmin oo weli leh muuqaalkoodii asalka ahaa, haystana dhaqamadii hore ee qadiimiga ahaa sida diimaha iyo caadooyinkii ay qarniyo ka hor aaminsanaayeen. taariikhyahanada wax ka qora sooyaalkii hore ee Soomaalida waxay sheegaan in Rendilaha ama reer diinle ay markii hore qayb ka ahaayeen bulshada Soomaalida ilaa laga soo gaaro intii Islaamku ka soo gaarayay dhulka Soomaalidu degto, markaasi oo ay Soomaalidu qaadatay diinta Islaamka, halka Rendiluhu ku hareen diimihii kale ee ay Soomaalidu haysatay Islaamka ka hor. sidaana loogu bixiyey magaca reer diidle oo loola jeedo kuwii Ilaahay diiday. dhinaca kale waxaa jira fikrado dhigaya in kala tegidda Rendilaha iyo Soomaalida inteeda kale uu ahaa ka hor curashadii Islaamka. Rendilaha ayaa ka biyadiiday inuu u soo hayaamo dhulka ay maanta Soomaalidu degan tahay, iyaga oo dhinaca koonfur u sii raacay dhulka ka hooseeya dooxada Rift Valley, gaar ahaanna deegaanada u dhexeeya xuduudaha Kenya iyo Itoobiya. sidaana uu u go'ay xiriirkii kala dhexeeyey Soomaalida iyo iyaga, waxaana weli lagu arki karaa raadad qadiimi ah oo la xiriira dhaqamadii hore ee Islaamka ka horeeyey, sida caabudidda sanamyadii hore iyo dhaqamo ay ka mid yihiin cabbidda dhiigga. waxaa jira taariikhyahanno kale oo doodda asalka Rendilaha u dhiga qaab ka duwan labada fikir ee hore. ra'yigan dambe ayaa qaba in Rendile aysan ahayn dad Soomaali ah, balse ay yihiin dad kushitig ah oo ku dhig ah Soomaalida, Oromada, Cafarta iyo bulshooyinka kale ee loo yaqaano kushitiga Afro-Asiatiga ah, kuwaasi oo wadaaga dhaqamo badan oo ay ka mid yihiin xoolo dhaqashada iyo erayo badan oo luqadaha ay ku hadlaan ka dhexeeya. qoraaga Ronald Baris buuggiisii Rendile wuxuu ku sheegay in qarnigii 16aad ay dagaallo aad u tiro badan dhex mareen Soomaalida iyo Oromada, kaasi oo ku dhisnaa dhulkala qaadasho, isir iyo diin. dagaaladan oo ay Oromadu ku weeday dhul aad u badan ayaa dhinaca kale bulshooyinka uu sida aadka ah u saameeyey. waxaa ka mid ahaa Rendilaha oo ka barakacay dhulkii ay degganaayeen, iyaga oo kor u sii dhaafay webiga Tana si ay uga nabadgalaan gulufka Oromada oo dhinacyo badan kaga yimid, iyo Soomaalida oo ay ku culloobeen diidmadii ay kala hortageen qaadashada diinta Islaamka. qoraaga ayaa Rendilaha ku sifeeyey dad haysta qaybo badan oo ka mid ah afka Soomaaliga intiisii qadiimiga ahayd ee aan luqadaha kale ku dhex milmin. cadooyinka dadkan ayaa waxaa ka mid ah ciidda ay ugu dabaaldegaan dhammaystiranka iftiinka dayaxa oo meel muhiim ah uga jira diinta ay haystaan. waxay caabudaan waxyaabo ay ilaah ahaan u aaminsan yihiin oo uu ka mid yahay Waakah. inta badanna waxaa ku cad taariikhihii hore in Waakah uu ahaa astaanta ugu weyn diimihii hore ee Soomaalida, Cafarta iyo Oromada ka hor intuusan soo gaarin Islaamku.
xilliga abaaraha waxay xoolo gowracan ku daadiyaan meelaha harooyinka iyo biyo-mareennada ah iyaga oo waxa ay ilaah ahaanta u caabudaan ka baryaya inuu biyo u keeno sidaana ay xoolaha ugu gowracaan. qaybo yar oo ka mida Rendile ayaa haysta diinta Islaamka iyo Masiixiyadda, balse inta badan weli diimahoodii iyo dhaqamadoodii hore ayay ku dhaqmaan, weliba iyagoo ku adadag. dhaqamada ay Soomaalida la wadaagaanna waxaa ka mid ah gudniinka, ciyaaraha dabshidka, iyo ku bixinta geela, wax kasta oo qiimo leh sida heshiisyada iyo guurka. dharka ay xirtaan ragga Rendile ayaa aad ugu eg dharka hiddaha ee waqtiyadii hore ay ragga Soomaalidu gashan jireen, sida labada go' ee cad iyo duubka. tirakoob la sameeyey sanadkii 2019 ayaa tirada dadka Rendile lagu sheegay ku dhowaad 100,000 oo qof, kuwaasi oo ah reer guuraa dhaqda xoolaha sida ariga, lo'da iyo geela. waxay degaan dhul carro adag oo saxaro xigeen geedgaab ah. geela ayaa ah xoolahooda midka ay mudnaanta koobaad siiyaan, waxayna leeyihiin geeljirayaal u carbisan dhaqidda geela si la mida geeljiraha Soomaaliyeed oo mar kasta u hawla ka warqabka geela. deegaankooda ugu weyn waa dhulka oomanaha ah ee ka hooseeya buurta Marsabit ee gobolka waqooyi bari Kenya. waxay ku hadlaan luqadda Rendile oo aad ugu dhow luqadda Soomaaliga, halka qaarkood oo ku dhex milmay bulshooyinka u dhow deegaan ahaan ay ku hadlaan luqado kale oo u eg kuwa ay ku hadlaan dadka loo yaqaano Samburu ee dega dhulka u dhow halka ay Rendiluhu degaan.